Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin walaalayaal soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan la talin ku siinayaa waxa ay sameyn lahaayeen dadka jaamacadaha dhameeyay ama dadka aan markan aan camalka ahayn ama sanadkan dhameynaya ayaan 3 talooyin ku siinayaa oo ay hadda aan isleeyahay way hirgelin karaan ama ay way sameyn karaan. intaynan muuqaalkan walaalayaal u guda gelin 3dan talaabo aad sameynaysid marka jaamacada aad soo dhameysid, waxaan jeclaan lahaa inaad marka koowaad muuqaalka aad like saartaan si uu dad badan u sii gaadho. sidoo kalena waxaan idinku hambalyeeynaya Ramadaan Mubaarak oo insha Allah berri soonkii inoo bilaaban doono in Ilaahay insha Allah inaga mid dhigo kuwa uu naarta ka xoreeyo. waxaan YouTube-ka qaybta community-gayga ku weydiiyay maxaad jeclaan lahayd inaan kanaalka kaga hadallo. nin dhalinyaro ah su'aashan ina soo weydiiyaan screen-ka idin soo saaraya ayaa ugu like badatay oo ku saabsan sikriyo dhalinyarada jaamacadaha soo dhameeya ama si sanadkan dhameynaya ee dalkii ku soo laabanaya maxaad kula talin lahayd ama si kuwii dalkii joogayba. marka insha Allah muuqaalkan 3 talaabo oo cad oo mid kasta tusaalaheeda wadata ayaan rabaa inaan idinku siiyo oo aan leeyahay qodobkaas samee, halka ka bilow, halka ka raadi, sidaas samee. ayaan rabaa inaan insha Allah muuqaalkan aan walaalayaal idinku soo gudbiyo. qodobka koowaad waa dhalinyarada raba in ay waxay barteen ama si cilmigooda raba inay ku shaqeeyaan oo ay shaqo ku helaan. maxaan kula talin lahaa inay talaabooyin ay qaadaan ay sameeyaan si ay waxay soo baranayeen shahaadadoodii ay shaqo ugu helaan. qodobka koowaad walaalayaal aan kula talin lahaa dhalinyaradaas waxa weeye waa marka koowaad waa in ay CV-gooda ay diyaarsadaan oo ay resume dad u yaqaanaan ama se yacni arjigoodii shaqada ama se codsiga ay ku gudbisan lahaayeen waraaqdii waxyaalaha ay soo barteen, khibradda ay leeyihiin, waxyaalaha ay ku wanaagsan yihiin, waxyaalaha ay xiiseeyaan, aqoonta iyo skillska gaarka ay leeyihiin. waa in aad marka koowaad walaalayaal aad CV aad diyaarsatid maadaama aad CV-gaaga aad u gudbinaysid meelo badan oo kala duwan oo shaqooyinka aad kaga raadsanaysid. marka magaalooyinka waaweyn waxaa jira NGO-yo dad maartay hay'adaha la shaqeeya, dad jaamacadaha ka tirsan, dad badan baa khabiir ku ah qaabka CV-ga loo qoro. waxaa dhici karta inay khidmad ka qaataan, marka waxaad ka heli kartaa dadka badi hay'adaha iyo NGO-yada ka shaqeeya ayaa ku tilmaami doona. ururo ayaa jira dadka u tababara sida loo qoro oo meelaha halabuurka ah ka caawiya ay magaalooyinka leeyihiin. meelahaas oo dhan baad la kaashanaysaa. waa marka koowaad walaalayaal waa in aad CV-gaaga aad qoratid oo hagaajisid oo CV professional ah oo Ingiriisi af Soomaali labadaba ku qoran aad samaysid. waa qodobka koowaad. qodobka labaad walaalayaal aan kula talin lahaa dhalinyarada raba inay shaqo abuur sameeyaan meelaha shaqooyinka laga helo waa in ay iska diiwaan geliyaan aadna ay ula socdaan. tusaale ahaan dhalinyaradeennu badi waxay galaan Facebook iyo TikTok, meelaha shaqooyin lagama helo. dadka professionalka ah ee shirkadaha iyo hay'adaha iyo meelaha ay fursaduhu taalo ka mas'uula waxay badi socialka ay galaan. waxaa la dhahaa website-kan LinkedIn baa la dhahaa. adduunka oo dhan waa sida dadka professionalka ah ee kombaniyasha maamula ee wada shaqeeya ee shaqooyinka maartay muhiimka ah hela website-kan iska wada diiwaan geliyaan. waxaan kula talin lahaa inaad samaysataan cid aan hadda ayna u samaysnayn LinkedIn profile oo hadhowto aad ka heli kartaan dadka shirkadaha iyo hay'adaha madax ka ah oo CV-giina aad si fudud aad ugu diri kartaan. waa qodobka labaad. website-ka LinkedIn shaqooyin badan ayaa laga helaa. sidoo kale walaalayaal waxaad iska diiwaan gelin kartaan website-yadan shaqooyinka Soomaalida laga helo sida Somali Jobs oo kale, sida Qaran Jobs oo kale, sida yacni aad iyo aad bood UN vacancies Somali Jobs oo kale. haddii aad Google ku qortid Somali Jobs aad ku qortid ama shaqooyinka Soomaalida u bannaan waxaa kuu soo baxaya intaas oo fursadood oo hay'adaha, ururada caalamiga ah, shirkadaha dhammaantood ay shaqooyin ay bixinayaan. waan ognahay in caqabado badan ay jiraan oo dadku ay ka cabanayaan in qaab qabyaaladeed shaqada la isku siiyo, in qaab indhagarasho shaqada la isku siiyo, waxyaalo badan ay jiraan. laakiin Ilaahay tala saaro, Ilaahay bari, Ilaahay baa gacanta shaqada ku haya. binaadamku gacanta shaqada kuma hayaan. adigu dadaal. website-yadaas oo dhan shaqooyinka ka soo baxa maxay ahayd apply garee kuwa ku khuseeya aad markaa ku wanaagsan tahay. qodobka ugu dambeeya ee dadka shaqada raadinaya aan kula talin lahaa oo adduunka aad loo sameeyo waa inaad si
mutadaawacnimo ah volunteer aad ku shaqaysid ama se mushahar dhiman aad kula shaqaysid cidda aad doonaysid markaana shaqada aad ka heshid. Intern jobs wax la dhaho ama volunteering wax la dhaho ayaa adduunka aad uga jira, oo tusaale ahaan NGO baad rabtaa inaad ka shaqaysid ama hay'adaas waxaad siin kartaa inaad tirahdid sanad baan rabaa si free inaan kula shaqeeyo, oo reportyada sida loo qoro kale ayaan ku wanaagsanahay, projectyada sida loo manage gareeyo ayaan ku wanaagsanahay. insha Allah 2 cishaan rabaa isbuucii inaan idin shaqeeyo aniguna saan khibrad u helo oo CV-gayga aan ugu darsado. haddii arkaan inaad shaqo wanaagsan aad u qabatay oo value iyo qiimo ku soo biirisay, waxay u badan tahay inay shaqaalenimada ay ku qaataan. marka inaad aad iyo aad ama isbitaal haddaad rabtid inaad ka shaqaysid, ama haddaad doonaysid inaad yani hay'ad u shaqaysid, ama haddaad doonaysid shirkad dhisme inaad u shaqaysid, isku day bil ama 2 bilood ama 3 bilood si bilaash ah inaad ula shaqaysid oo shaqo wanaagsan aad u qabatid. waxay u badan tahay inay shaqada ku qaataan marka ay fursad soo baxdo oo ay dhab arkaan inay ka tahay shaqo raadintan. waa qaybta koowaad walaalayaal, waa dadka shaqada doonaya ayaan kula talinaynaa. qaybta labaad ee soo hadhay walaalayaal, waa dadka raba in ay ganacsi bilaabaan oo ay hal abuur la yimaadaan, jaamacadahana soo dhameeyay. talada ugu muhiimsan ay qaybtan ka bixinayno walaalayaal waa in aad soo raadisaan marka koowaad fursad suuqa ka shaqayn karta oo looga baahan yahay. fursadaas oo shaqo abuurna samayn karta bay raadiyaan dadka maalgelinta bixiya, ama hay'adaha ha noqdeen ama bangiyaha ha noqdeen ama dad kaleba ha noqdeen. fursadaas oo yani suuqa caqabad u xalinaysa, oo yani ma aha dadkeenu badi hebel baa wuxuu furtay carwo, hebel baa wuxuu furtay kan, hebel baa kan samey, way iskoobi garaynaa. waxyaalo raadiya suuqeena ka maqan ama se ku yar oo dadkeenuna ay u baahan yihiin. haddaad keeni kartid fikrad 100 macmiil heli karta ama 1000 macmiil heli karta oo aad soo qoratid oo macmiil kasta ku dhaho intaasaan ka qaadanayaa bishii, waxay u badan tahay inaad maalgelin ku heshid. dad familkaaga baad kaga heli kartaa, hay'adaad kaga heli kartaa, bangiyaad kaga heli kartaa. tusaale ahaan hal fikradan is leeyahay way ku liitaan weli Soomaalideena oo suuqa hilibka digaaga kaliya. hilibka digaaga waxa laga keenaa Brazil iyo Turkiga ayaa laga keenaa. waa wax fudud. digaag nooc la dhaho broiler la dhaho oo si degdeg u naaxa ayaa maartay oo si degdeg ah markii hilibka u koro ayaa digaag beer noocaas ayaa la sameeyaa. broiler poultry farm oo kale ayaa la sameeyaa. hilibka digaageena oo dhan Brazil iyo waxa laga keenaa Turkiga wada socotaan. haddaba waad ogtahay in hoteelada cuntada, maqaayadaha cuntada ay u baahan yihiin hilib digaag. dad badan ay u baahan yihiin hilib digaag oo local oo fresh ah. haddaba maxaad samayn kari lahayd? Ethiopia beero ku yaal oo digaaga noocan lagu xanaaneeyo ma jiraan, Kenya ma jiraan. meel aad tababar ku soo qaadan kartid, meel aad yani beedkooda ukuntooda aad ka soo iibsan kartid si aad hadhowta u dilaacaysid ma jiraan. waa inaad research ka samaysid wixii oo dhan markaad business proposalkii iyo business plankii aad qortid, markaas ayaad talooyinkan aad samayn kartaa. markaad fikradii saas oo kale aad hadda barnaamijyada jira aan digaaga kaga hadlay halkan aan ku soo dejinayaa, ama halkan qaybta sare baad ku dhufanaysaan si aad u daawataan qalabka loo baahan yahay iyo talooyin badan oo muhiim ah. waa tusaale ahaan qofkii raba inuu ganacsiga galo. markaad fikradii soo heshid baan ka wadaa digaag ma noqonaysaa wixii aad markaa meesha aad joogtid ka bannaan. hay'ado badan oo wax maalgeliya ayaa jira. hadda waxaa jira hay'ado si sanadle ah wax maalgeliya, bangiyo ayaa jira. bangiyada waxaad raadinaysaa barnaamij la dhaho microfinance ay bixiyaan oo ay ganacsatada yaryar ay siiyaan ilaa $30,000 ilaa $50,000 ilaa $3,000 qiimayaal kala duwan ay ku maalgeliyaan oo deyn ah ayaa jirta. sidoo kale waxaa jira barnaamijyo la dhaho mudaaraba, mushaaraka ay bangiyada wax ku maalgeliyaan. marka dadka bangiyada la xiriira ama Amal ha noqdeen ama Dahabshiil ha noqdeen ama Premier Bank ha noqoto, dadka qaybta maalgelinta u qaabilsan foomamka la buuxinayo, shuruudaha, waxyaalahaas oo dhan soo warayso. hadhowta la kaasho dadkaas maalgelinta bixinaya, dadkii kala shaqayn lahaa sida maalgelinta aad u heli lahayd. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxaa jira yani hadda hay'ad in la dhaho Innovate Ventures oo Telesom shuraaka la ah baa Hargeysa sanad kasta maalgelin bay u samaysaa dhalinyarada ilaa 700 oo dhalinyarada sanadkii ugu dambeeyay xareystay oo kale. hay'adahaas maalgelinta iyo tartanada ganacsi bixiyo oo dhan iska diiwaan geli. tartanada ha kula qoreen dad waxaa jira dad shaqo doon organization urur la dhaho oo kale oo ka caawiya sida
loo qoro araajida ganacsiyada oo kale loo dejiyo hadhowto tartanka dad ku guuleysatid $10,000 $20,000 $5,000 maalgelino noocaas oo kale ayaad heli kartaa. waxaa kale oo jira sidoo kale in dadkaaga xataa faamilka ama dad asxaabta aad la kaashan kartid oo fikradani hadday tahay fikrad shaqaynaysa ku maalgelin karaa. fikradahaas oo dhan maalgelinta waxaa la keeni karaa marka aad fursad cad aad la timaadid oo suuqa lacag faa'iido lagaga heli karo. marka koowaad fursad raadinaysa, marka labaad bangiyada, hay'adaha, ururada, shuraaka oo kale niman la dhahay ayaa jira oo wax maalgeliya oo isku xidha hay'adaha iyo bangiyada iyo dadka wax maalgelin kara iyo dadka raba inay fursada sameeyaan oo kale ayaa jira. marka meel kasta oo tartan ganacsi ama hay'ad ama bangi baad raadinaysaa oo maalgelin markaa bixin karta ama si aad ka heli kartid si aad maalgelinta ganacsi markaa aad u heshid. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad ee ugu dambeeya walaalayaal, haddii aadan markaa shaqana aad raadinayn, ganacsina aad markaa bilaabayn, waa inaad waxbarashadiisii wadid oo skills yani markaa qiimo ku biirin kara hay'adaas ama shirkadda ama dadka aad la shaqayn lahayd inaad baratid. haddaad rabtid inaad dhismaha ka shaqaysid waa inaad baratid sida yani civil engineering ama sida guryaha loo dhiso ama sida guryaha loo qurxiyo, intaad isbari kartid aad baratid. haddaad rabtid inaad hay'ad la shaqaysid sida riboodhada loo qoro, sida project manager loo maamulo, sida wax maartay Microsoft-yada iyo waxyaalaha basic ah loo isticmaalo, waxyaalahaas oo dhan waa skill ahaan inaad u sii baratid si aad hadhowto xataa ay u badiso CV-gaagana u qurxiso, fursadaadana ay u wanaajiso. ayaan qodobka saddexaad kula talin lahaa. insha Allah walaalayaal, dhalinyarada raba inay jaamacadda dhameeyaan saddexda qodob mid ka mid ah sameeyaan. qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsanna asin sheegnay waa inaad shaqo noocay doontaa noqoto. ilaahu beer miyaad ka shaqaysid, ilaahu bad miyaad ka shaqaysid, ilaahu miyaad shirkad wax kasta la shaqaysid, waa inaad qayb waqti ka mid ah subaxii aad shaqaysid oo aadan kaliya fursadda aadan sugin oo dadaalka aad ku garab wadid. marka insha Allah walaalayaal, saddexda tale ayaan idin soo jeedinaya dhalinyarada raba inay jaamacadaha soo dhameeyaan ay qaban karaan. muuqaal la mid ah marka inta kaga gulmi doono walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.